بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، واحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. waxaanu halkan ka gelaynaa suuratu lmutafifiin. waa suurad maki ah, aayadaheedana waa 36 aayadood. waxay soo degtay suuratu lcankabuud dibadeed ayay soo degtay. waxaa la yidhaahdaa qur-aanka makiga maka kusoo degay wixii ugu dambeeyey waa suurad oo maka kusoo degta, ama qur-aankii makiga ah guud ahaan. waxaa laga hadlayaa qeybta suuraddu marka hore ka hadlaysaa dadka nusqaamiya miisaanka ama beega nusqaamiya markay wax beeganayaan, oofsada markii ay muxuu ahaayey ay beegayaanna waa oofsanayaan, markay u beegayaanna way nusqaaminayaan, markay miisaamanayaan way oofsanayaan, markii ay dadka u miisaamayaanna way nusqaaminayaan. bimacnaa dulmi waaye, dadkiiya dulminaya. dulmigaas wax xun inuu yahay oo aada iyo aada u xun yahay ayay suuradda awalkeedu ka hadlaydaa. dadka waxaa ku kacayahay inuusan waxaas wax fiican ahayn, oo dadka bulshada muslimka ah aada iyo aada looga digayo inay ku dhaqmaan. maxaa yeeley wax ilaahay jecel yahay maaha, waa wax ciqaabo ka ratimaydo oo ciqaabo ay ka dhalanayso. sidaas darteedna qofka la rabo inuu iska ilaaliyo oo uu guto xuquuqda maaragtay lagu leeyahay si dhammaystiran u bixiyo. taas ayaa meesha ku jirta maaragta. bismi illaahi araxmaan araxiim. ilaahay magaciisaan ku bilaabanaynaa. allaha naxariista caamka guud ahaaneed naxariistayay midda khaaska intaba. ilaahay wuxuu yidhi weylun halaag baa u sugnaaday lilmutafifiina kuwa fududeeya, kuwa takfiifiyo fududeeya. halaag baa u sugnaadaa leeyi. way fududeynayaan, way nusqaaminayaan. marka fududeyntaasaa lagu fasirayaa oo aayadaha qeybta dambaaban caddaynaysa mutafifiinta waayo. ilaahay wuxuu yidhi alladiina kuwiibaa halaag u sugnaaday idagtaalu, ama hum ayaku alladiina kuwii weeye. labadaba ciraabta midkaa dantaad u ciraabi kartaa. alladiina kuwiibaa halaag u sugnaaday, ama hum iyagu mutafifiintaasi alladiina kuwii weeyaan idaktaaluu markay beeganayaan cala annaasi ay min annaasi dadka markay kasoo beeganayaan oo wax ka qaadanayaan yastawfuuna oofsanayay oo dhammaystiranayay oo xaqoodii waxba aan ka tegaynin. waidaa kaaluuhum markay u beegayaan, waidaa kaaluuhum ay kaaluu lahum linnaasi dadka markay u beegayaanna, aw wasanuuhum ama ay u miisaamayaan, ay wasanuu lahum waa iyaka markay dadkii lahum linnaasi ay u miisaamayaanna, yukhsiruuna ka nusqaaminayay, ka khasaarinayay, yacni yuuqicuuna fi lkhasaara, khasaarada ku ridayay. liannahu xaqoodii ayay ka nusqaaminayaan, way khasaarinayaan, khasaaray ku ridayaan. kuwaas waxaa u sugnaaday buu yidhi ilaahay halaag baa u sugnaaday. weyl waa waadin fii jahannama la yihaa. waadigu halaag baa u sugnaaday. qolada xaqa ka nusqaaminayda dadka xuquuqdoodii, oo dhaqankoodu uu yahay markii ayaku ay qaadanayaanna xaqii oo dhammaystiran inay qaataan, oo miisaankii iyo beegii intaba ay ku dhammaystirtaan. marka ay dadka siinayaanna inay nusqaamiyaan oo dadkii xaqoodii ay ka dulmiyaan, iyagoo markaas rebi xaaraana raadinaya ama faa'iido xaaraana raadinaya, markaa dadkay ka nusqaamiyaan.
marka dhaqankaas waa dhaqan aada u xun weeyaan oo halaag lagu mudanayo, cadaab lagu mudanayo. wax alla waxa soo galaya dulmi kasta oo qofka aad dulmido oo wixiisa aad ka dulmido ood ka nusqaamido aad ka khasaarido, waxaasoo dhan ayaa soo wada gelaya. waa wax wada xaaraan ah weeyaan. marka ilaahay wuxuu yidhi weylun halaag baa lilmutafifiina kuwii fududaynayay u sugnaaday, alladiina kuwii halaag baa u sugnaaday ida ktaaluu markay beeganayaan cala annaasi min annaasi dadka ay ka beeganayaan, yastawfuuna dhammaystiranaya oofsanaya xaqooda. wa idaa kaaluu markay beegayaan hum kaaluuhum ay kaaluu linnaasi kaaluu lahum dadka markay u beegayaanna, aw wasanuuhum ay wasanuu lahum markay u beegayaan dadka u miisaamayaanna, yukhsiruuna khasaarinayeen oo khasaare ku ridayeen oo xaqoodii ka nusqaaminayeen. kuwaas halaag baa u sugnaaday. marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanah, alaa yadunnu kuwaas miyaanay malaynayna. danigu waxaa la yidhaha waa danu raajix, yani sida raajixa ah xaqiiqadiisi waa la yidhaahdaa. alaa yadunnu miyay kuwaasu ayna malaynaynin, alaa yadunnu miyaanay malaynaynin ulaa'ika kuwaasi annahum iyaku mabcuuhuuna inay yihiin kuwii lasoo bixinayo. mabcuuhuuna inay yihiin kuwa lasoo bixinayo maalinta aakhire la gaaro, in qubuuraha laga soo saari doono oo aakhire ay jirto oo la isla xisaabtamayo. miyaanay kuwaasi malaynayninaa le oysan ogeyn. yani qofku markuu ogyahay aakhiradaysa uu ogyahay oo aaminsan yahay, rumaysan yahay maalin la isla xisaabtamaya inay jirto oo waxa lagu xusuubiyo lagu xisaabinayo, hadday khayr yihiin hadday shar yihiin, taasi waxay keenaysaa inuu iska ilaaliyo dulmiga iyo xadgudubka, inuu iska ilaaliyo keenayda. marka waxaa la yidhi alaa yadunnu miyaanay malaynaynin ulaa'ika kuwaasi annahum iyaku mabcuuhuuna inay yihiin kuwii lasoo bixinayo, liyowmin fii yowmin maalin in lasoo bixinayo, cadiimin ee weyn, maalin weyn lasoo bixinayo. marka cadiimka maalintaas waa yowm alqiyaama. weynanka waxaa loogu nisbeynay cadiimka loo leeyahay waxa weeyaan waxa dhacaya maalintaas gudaheeda, ahwaalulqiyaama ah ayaa maalintaas aada u waaweyn. maalintaas in lasoo bixi doono oo bankii qiyaamo la keeni doono, miyaanan kuwaasu malaynaynaa leeyahay. yowma yaquumu nnaasu miyaysan malaynayn maalin in lasoo bixinayo, maalinta dadku ay hor istaagayaan. yaquumu nnaasu dadku ay hor istaagayaan lirabbi alcaalamiina, rabbilcaalamiin darti ay bankii qiyaamo u istaagayaan. yaquumu nnaasu fii carasaati alqiyaama, yacni bankii qiyaame ayay dadku ay istaagayaan oo tegayaan oo la geynayaa. markaasi lirabbi alcaalamiin ayay mataqaanaa u taagan yihiinoo inay la kulmaan xukunkiisa ay qaataan oo xukunka ilaahay uu ku ridayo, oo qof walba camalkii uu qabtay iyo wixii uu meeshaa la yimid la xisaabinayo, natiijadii ka dhalatana uu maalintaa qaadanayo, ayay halkaa u imaanayaan. maalintaa miyaysan ka cabsanaynaa laleeyahay. marka isku soo duubduub waxaa weeyaan maalintu maalin dhib badan weeye. ilaahay naga badbaadiyo. qof walbaa hibana inuu xisaabtamo weeyaano dulmiga iyo tacadiga iyo xadgudubka ummadda lagu suubinayo muxuu ahaaye meel cidlah dhici maayo oo meel layska day maayo. maalintaasaa qiyaamo ayaa imaanaysa. qofkii aada miisaan ku dulmiday, qofkii aada beega ku dulmiday, qofkii aada xuquuqdiisa si kale u dulmiday, qof alla qofkii aada adigu dhibaato u geysatay, meel cidlah ku bixi mayso. maalintaasaa jiri doonta. maalinta qubuuraha la iska soo saarayo, maalintaa weynanka badan, maalintaa dadku ay ilaahay hor istaagayaan. wa amaa man khaafa maqaama rabbi, rabbigiisa hor istaagiisa qofkii ka cabsaday, yacni waxa weeyaan maalintaasa dadkoo dhamo khalaa'iqdoo dhamo ayay rabbi hor istaagayaan. lirabbi alcaalamiin, makhluuqaadka rabbigiisii yale, yacni makhluuqaadkoo idil ayuu rabbi u yahay oo mataqaana isagu barbaariyey oo xukunkiisay qaadanayaan oo sugayaan.
markaasay hor istaagayaan. Maanta miyaysan ka cabsanaynaa leeyahay, maalin adag waay. kallaa ka joogaa la leeyahay, tadfiifkaas aada fududaynaydaan iyo dulmiga dadka aada dulminaydaan ood xuquuqdooda ku xadgudbaydaan iska daayaa layidhi. inna kitaaba alfujaari baa lifaajiriinta kitaabkooda, yacni saxaa'ifu acmaalihim, kitaabka camalkooda lagu qorayo, yaa acmaashoodii xunxumayd, yacni meesha lagu qorayaahi kitaabkaasi lafii sijiin fiigiisu ahaaday, dhexdiisu ahaaday. sijiinkaas waa meel hooseedaa leh, xabsi hooseeya oo aada u hooseeya ayuu ku jiraa waay. yacni waxaa weeyaan meel aada u hooseyda oo aan fiicnayn ayaa kitaabkaasu yaallaa. leanna camalka lagu qoraba camal wanaagsan ma aha, dadka suubiyana dad fiican ma aha. marka wuxuuday halkaas sijnigaasaa lagu hayaa, halkaasaa la geenayaa. marka camalkaas xunoo dhan halka lagu qorayaahi ama la dhigaya kitaabka lagu qoray fii sijiininkaas, xabsigaasaa la geenaya, sijnigaasaa la geenayaa, halkaasaa lagu qorayaa faajiriin oo dhan. marka camalkaa xun wuxuu kaa dhigayaa inaad faajiriinta ku biirto, kuwaas qaabka daran ee camalkooda sidaa meeshaa la geenayo inaad ka mid noqoto. ilaahay naga badbaadiyo. marka qof walba is ilaali waay. ilaahay wuxuu yidhi wamaa adraaka, maxaa ku ogeysiiyey, maa sijiin waxa uu yahay, maxaa ku ogeysiyaale. xabsigaas maxaad ka ogtaa? waa meel aada u dhibaato badan waay. yacni waxa weeyaan camalkii lagu xabisayo, lagu haynayo. yacni waxa weye ama waxaa la yidhaha sijiinku waa sababulxabsi, waa xabsiga iyo ciriiriga iyo waa meel wixii la geeyo aysan ka baxayn oo aysan meel ka tegaynin waale. waa jahanamo dhexdeedaa la yidhaha. marka kitaabkaasaa lagu hayaa camalkoodii oo uu ku qoran yahay, sijnigaasay ku jirayaan oo aan maaragtay aysan ka soo baxaynin. marka kitaabkaas maxaa ku ogeysiyaa layidhi, muxuu yahay mataqaanaa? kitaabun huwa kitaabun waaye, kitaabulfujaarka lagu sheegaya, marquumun ee la sadareeyey ama muxuu ahaay la bayaaniyey waay. waxa ku qoran ay bayaan yihiin, waadix yihiin waay. bayinu lkitaaba, yacni kitaabadiisii bannaankay taallaha waa loo jeeda, wax qarsoon oo ka lumayaha ma jiraan ale. weylun buu yidhi alle, halaag baa u sugnaaday yowma idin maalintaas. waa gooran yowma idintaa tanwiinto, yani ciwadu can maxduufaa la yidhaah, shay xadfanay ciwad ka tahay. yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin, maalintaa dadku ay ilaahay hor istaagayaan, rabbulcaalamiin ay hor istaagayaan. halaag baa u sugnaaday lilmukadibiina, kuwa beeniya yaa waxaa u sugnaaday halaag. halaag baa u sugnaaday. yacni kuwa mudafiintuna waa ku jiraan, keyrkoodna waa ku jiraan, laakiin dhammaantood waa ka saman yihiin oo tahdiidku waa ku wada dhacaya dhammaantood. aladiina kuwii halaag baa u sugnaaday yukadibuuna beeninayaan biyowmi ddiini, yowmuddiinka beeninaya, yowm aljazaa, maalinta lays amaal marinayo. kuwa beeninayo inkirsanoo diidan waay, maalintaasay diidan yihiin. yacni maalintaasuna waa maalin waxa weye xikmad weyn ku fadhido. khalqigan koonka la keeno, insiga jinnigan la abuuray, hadafka laga leeyahay waa in la amal mariyo oo maaragtay amarkii ilaahay markii ay adduunkan yimaadeen, imtixaankii ay mareen, qof walba hiba uu maaragtay soo dhammaysto noloshiisa, natiijadii ka dhalatay jazaheeda inuu helo waay. laakiin haddii la yidhaahdo lays amaal mari maayo, de qof walba haba maaragtay macno daray noqonay adduunkiiba. afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha wa annakum ilayna laa turjacuun. taasaa meesha taallo. yacni qofku inuu maleeyo is yidhaahdo meeshan bilaashaad u timido, waxaa dan lagaama laha oo hadaf lagaama laha oo wax qaayaha ujeedahu lagaaliya lama arko, waa garaadyari weeyaan, waa caqli xumo. waa hadaf baa jira, ujeeddaanna loo keenay meeshaan. wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun, ayuu ilaahay leeyay. jin iyo insi uma abuurin ilaa liyacbuduun, inay caabudaan mooyaane. macnaa licibaadati illaahi caza wajal ayaa meeshaana loo keenay, alle inaan caabudno, alle inaan waxidno, ilaahay towxiidkiisa inaan ku caabudno, cid kale aynaan la wadaajinin, daacadiisa aan ku dadaalno, amarkiisa aynu qaadanno, wuxuu naga reebana aynu ka harno, ayaa meesha naloo keenay. maahane
maaragtay arrinku ma aha. qof walbow saad reebtaad iska yeelin, hadhow markii kaa dhammaatana waad iska tegin. arrinku sidaa ma aha wey, sidaa ma aha. aladiina kuwii baa halaag u sugnaaday yukadibuun, weylka u sugnaaday wa halaagi waa cadaabkii, yukadibuuna beeninaya biyowmi ddiini, yowmi diinka beeninaya. yacni maalintaasay beeninayo diidan yihiin. ilaahay wuxuu yidhi marka wamaa yukadibu ma beeniyo bihi biyowmi ddiin, yowmi diinka ma beeniyo ilaa kullu muctadin ku xadgudub badan kulligii mooyaane. mid xadgudub badan xuduudda ilaahay ku tunta oo ilaahay wuxuu ka reebay ku dhex maraya oo xumaantii aan ka dhowrsanaynin, athiimin ee dembi badan shirki iyo gaalnimadii iyo wixii oo dhan ka dhowrsan maayo. midkaas maahane mid kale ma beeniyo waay. idaa tutlaa markii la akhriyo calayhi, kaas weeye muctadiga athiimka ah, markii lagu akhriyo aayaatunaa aayadaheena markii lagu akhriyo, qaala wuxuu leeyahay asaatiiru alawaliin, hiya aayaadkaasi asaatiiru alawaliin, dadkii hore sheekooyinkoodii waay. yacni qur-aanka markii lagu akhriyo, aayadaha ilaahay lagu akhriyo, meeshuu ku ciro qaada lahaa, ku waansami lahaa, waa sheekooyinkii la sheegsheegi jiray, wixii qisooyinkii la qori jiray waayo maaragtay dadkii hore laga soo xikaayoon jiray. agtiisaba sheekay ka tahaba waay. waxa qur-aan ku yaalla iyo waxa risaalada maaragtay rasuulku uu la yimid maaragtay ay sheegaysaba, agtiisa waa un mujarad maaragtay qisas ayay agtiisa ka tahaba. yacni wasan iyo miisaanba agtiisa kama leh. marka asaatiiru alawaliin yacni sheekooyinka shucuubtu ku sheekaysato aan la aqoonin ciddii soo aliftay yiraan adabka iyo markii la joogo kuliyaadka laga dhigayo. yacni saasaa loo qaybiyaa maaragtay. marka wamaa yukadibu ma beeniyo bihi biyowmi ddiini buu yidhi alla yowmi diinka ma beeniyo ilaa kullu muctadin ku xadgudub badan kulligii mooyaane, athiimin ee dembi badan. idaa tutlaa markii la akhriyo calayhi korkiisa aayaatuna aayadaheena markii lagu akhriyo, qaala wuxuu leeyahay asaatiiru alawaliin, hiya aayadahanu asaatiiru alawaliin, dadkii hore sheekooyinkoodii, khuraafaadkoodii, qusacbalaadkoodii weeye. ilaahay wuxuu yidhi kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun. kalaa ka joogaale, waa radci lo canaananayo oo laleeyahay ka jooga. arrinkaas waa arrin xun. inaad yowmuddiin beenidaan, inaad xadgudub suubidaan, inaad dembiga suubidaan, inaad qur-aankii tidhaahdaan asaatiiru alawaliin, inaad tadfiifkii suubidaan ood miisaankii iyo beegkii nusqaamidaan, waxaasoo dhan wax aada xun wey. ka joogaa laleeyahy. kalaa ka jooga. bal iska dhaafay idiraabkii waayo, tii horaa laga tegay mid kalaa la gaaray. waxaa la yidhi raana waxaa madoobeeyey, ku dhegay oo madoobeeyey, yacni sada'i waaye, waxaa madoobeeyey waaye, calaa quluubihim quluubtoodii waxaa madoobeeyey oo fuulay oo daboolay maakii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwii kasbada. yacni dunuubtii iyo xumaantii ay koreen oo ay suubiyeen, macaasidii ay suubiyeen ayaa qulubtoodii ama cuquushii qulubta lagu sheegay waa caqligii iyo idraagkii. inaha laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluub alatii fi suduur. macnaa wixii ay wax ku fahmi lahaayeen oo aayadaha ilaahay ay ku fahmi lahaayeen oo ay ku garan lahaayeen, waxa ka daboolay waa dunuubta faraha badan. ilaa qofku hadduu dembi galo, sidaba aathaarta ku sugnaatay iyo xadiidka nebiga calayh salaatu wasalaam, nukat sawdaa yaa ku dhacaysa qalbigiisaa la yidhaah. haddii uu ka noqdo way caddaani, laakiin hadduu dembiga usii noqdo way sii badanaydaa ilaa markii dambe waxba kala gara waayo, xumaantii iyo wanaag isugu mid noqdo. waa arrin halis ah waay. marka nimankan waxa u keenaya inay asaatiiru alawaliina yidhaahdaan, inay tacadi suubiyaan oo dembiga faraha badan la yimaadaan, inay yowmuddiinkii beeniyaan, inay miisaankiina waxaas oo xumaanhoo dhan maxaa ku soo qaadaya? waxaa ku qaadaya raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun. yacni dembiyaashii ay gelayeen ayaa daboolay indhihii ama qalbigii ama caqligii ay wax ku gara lahaayeen oo dhan ayay madoobeeyeen. marka meelay wax ku arkaanba ma leh. waa arrin halisa waa iyadana meesha waxaa lagu tusaaleynayaa halista uu leeyahay dembigu iyo macaasida la gelayahay. qofka muslimka ahi inuu ka digtoonaado, aada iyo aada isaga ilaaliyo ayaa la rabaa. uusan haddii wax ka dhacaanna
inaanu ag fariisane uu istikfaarta u degdego, ilaahay dembi dhaaf u weydiisto, oo maaragtay daacada uu badiyo, wanaagga uu badiyo. taasaa meeshay maaragtay ku jirta. leannu haddaadan dembigii iska sii wado, adiga waa madoome, qalbiga waa madoobaanayaa maaragtay. marka ilaahay wuxuu yidhi kallaa ka joogaa layidhi, bal raana waxaa dhegay, waxaa daboolay calaa quluubihim quluubtoodii maakii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwii kasbada. kallaa ka joogaa layidhi, yacni iyakiyaa radc tii horaa lagu ta'kiidinayaa. innahum waa lagu sheegay aakhiro waxyaalaha lagu suubinayo. innahum iyagu can rabbihim rabbigooda yowma-idin maalintaas, maalinta qiyaamee, yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiina waayee, la maxjuubuuna kuwii laga xijaabayo weeyaan. yacni maalintaa qiyaame ee qiyaame la tegayo, waxyaalaha lagu ciqaabayo waxaa ka mid a in aanay arkaynin rabbigooda, inaysan arkaynin waayo. maalintii mu'miniintu ay arkayaan oo rabbigooda ay arkayaan, yaa fadligaas iyo wanaaggaas waa laga mamnuucina, waa ihaano wey oo lagu ihaanaysanayo. innahum iyagu can rabbihim, can ru'yati rabbihim, rabbigooda arkitaankiisa, yaa yowma-idin maalintaas la maxjuubuuna kuwii laga manciyo weeye, kuwii laga reebo weeye, kuwii laga xijaabo weeyaan. uma innahum iyagu la saalu ljaxiim, jaxiimo kuwii gelaya waaye. jaxiimay yani salligu waxaa waaye gubasho xar kuleylkeeday ku gubanayaanoo jahanamay gelayaan. waxa jahanamo gelaya waa dadkii laga soo waramayoo mutafifiinta ahaa, miisaanka iyo keylka nusqaaminayay, yowmuddiinka beeninayay, muctadiinta ahiimka ahaa, qur-aanka markii lagu akhriyo aayaadka ilaahay asaatiiru alawaliin, waxaa lagu soo sheegoo dhan oo aayadda suuraddu ay ka soo hadashay, dadka ku sifoobay, yaa aakhirkooda wuxuu ku dambay doonaa in la yidhaahdo innahum iyagu la saalu ljaxiim, jaxiimo kuwii gelaya wey, naarta jahanama gelaya. marka yacni macnahaas waxaa weye qofkii u hoggaansami waaya aayadaha ilaahay iyo waxa ilaahay u sheegayo, waxa rasuulkiisa u sheegayo oo tawjiihaad ah, ayankaana mowqicu doona ha joogo, qofkii ismoogeysiiya waxaa weeye xaqiiqadaas u gaari doonaa waay. ilaahay kuwii ka badbaada allah inaga dhigo. marka ilaahay wuxuu yidhi uma innahum iyagu la saalu ljaxiimi, jaxiimo kuwii galaya waay. markii loo diiday ru'yadii rabbi ayaa haddana naartii la geeyey. uma yuqaalu, markaasaa waxaa lagu leeyahay, haadaa midkaani aad maanta ku jirtaanoo jahanamo ah oo naartood dhex fadhidaani, alladii kii weeye kuntum aad ahaydeen bihi asagaba tukadibuuna kuwii beeniya. maalintan ayadaa oo aada joogtaan ood cadaabka ku jirtaani, waa maalintii yowmuddiinka aad beeni jirteen ood inkiri jirteen, maanta indhihiinaad ku haysaan waay. hadda qoomama wax tari mayso, shalayta wax tari mayso. adduunka inta la joogo oo cimrigaaga uu nool yahaa la raba inaad issaxdo oo waxa wanaagga aad la timaado, dariiqa toosan aad ku toosnaato ayaa lagaa raba. maantaas waxba kuu tarime waay. uma yuqaalu, markaasaa waxaa lagu leeyahay, haadaa midkaani alladii kii waaye kuntum aad ahaydeen bihi asaga tukadibuuna kuwii beeniya. kallaa ka joogaa la yidhi, xumaanta aada haysaan iyo waxaasoo lasoo sheegay ka jooga. inna kitaaba alabraari, baariyiinta kitaabkoodu la fii ciliyiin, ciliyiin fiigeeda ayuu dhexdeedu ahaa, meel sarraysa wey, meel sarraysa oo sharaf badan oo maqaam wanaagsan ayaa ilaahay camalkooda, kitaabu acmaalihim, ayaa kitaabkooda halkaasaa la geeyo. waa kuwa baariyiinta oo daacada ilaahay ku dadaala, taqwada ilaahay ku dadaala, oo ilaahay ambiyadiisa raacay. dadkaasi kitaabkooda yacni camalkooda waxa lagu qoray halkaasaa la geeyey, halkaasuu ahaaday. yacni waa meel aada u sharaf badan, waa meel aada u sharaf badan. marka kitaabka lagaa qoray ama camalka lagaa qoray inuu ahaado lafii sijiin iyo lafii ciliyiin, adigo kala dooro waay. waa wax adiga ku xiran. haddaad xumaan suubido, hadda lafii sijiina wax lagu dhigayaa. haddii aad wanaag iyo khayr la timaadana, lafii ciliyiina wax lagu dhigayaa. keed jeceshaa in lagu geeyo waay. labadana natiija ka dhalanaysa. ilaahay maaragtay meesha wanaagsan ilaahay kuwii la geeya allah inagu daro.
ina kitaaba alabraari buu yidhi baariyiinta kitaabkoodu lafii ciliyiina ayuu ahaaday. wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa ciliyuun, ciliyuun waxa uu yahay maxaa ku ogeysiiyaale. yacni waxa weye waa mulxaqaadkii jamcu mudakar saalimkii waaye, oo sidii ciraabtii waxaa loo ciraaba jamcu mudakar saalim, laakiin ma aha jamcu mudakar saalim ma aha. marka ciliyuun waxa uu yahay maxaa ku ogeysiiyaale. markaasaa laguu sheegaya, waxaa la yidhi kitaabun huwa kitaabun waaye marquumun oo la raqameeyey waay, kitaab la raqameeyey ee bayinu lkitaabati. yani raqamka waxa weeye kitaabadaysa way caddahay, waa la akrin karaa, waa waadix, waa la fahmi karaa waay. yashhaduhu waxaa xaadiraya oo maaragtay kitaabkaas xaadiraya almuqarabuuna kuwii la dhoweeyey, almalaa'ikatu almuqarabuun. waa la sharifayaa, waa la sharfayaahoo yani dadka camalkooda kitaabka lagu qoray malaa'igtiyaa loo keenayaa. markaasaa laleeya waa nimankii wanaagsanaa, waa nimankii saas ahaa, waa baariyiintii, waa kuwii ilaahay daacadiisa qaatay, waa dadkii yani wanaag, dad aada iyo aada wanaagsan waay. marka dadkaas inaad ku darsanto iyo kuwii hore kala dooraa lagu leeyahay, aday ku taallaa. ilaahay marka waxaa lagu tira baariyiinta dadkaa wanaagsani meelaha ay ku dambay doonaan wax lagaa tusinaya. ina alabraara buu yidhi ilaahay kuwa baariyiintaahi lafii naciimin, nicmo dhexdeeday ahaadeen waay. faajiriintan waad uu leeyahay jahanamo halkaasi tegaya, lafii sijiinana wey, kuwana lafii naciimin, nicmo dhexdeeday ahaadeen. calal araa'iki bay ahaadeen, sariire korkood, jannada sariiraheedii waay. calal araa'iki sariire korkooday ahaayeen, ay yanduruuna ay eegayaan wanaagay eegayaan, amase yanduruuna ilaa rabbihim, rabbigooday eegayaan oo arkayaan, ama wax kastoo wanaag badan bay arkayaan. halkaasay ku sugan yihiin, meel cajaa'ib badan waay. tacrifu waad garanin fii wujuuhim wejiyaalkooda nadrata naciim, nicmadii ifkeediiyaad ka garanaysaa le. yacni waxaa weeyaan dad nicmaysan inay yihiin wejigooday ka muuqataa, meesha ay ku jiraan ee wanaaga badan ee barwaaqada badan. yani wejigooda markaad aragto ayaad maaragtay ayaad ka akhrisanaysaahoo barwaaqada ay ku jiraan halkaasaad ka akhrisanaydaa. ilaahay wuxuu yidhi yusqawna waa la waraabinayaa min raxiiqin, raxiiq xaggiisa laga waraabinayaa. waa khamri baa layidhi cajiib badan oo aada iyo aada u qiimo badan, khamriga jannada, makhtuumin ee la xiray waay. oo aan wax fasaadoo galaaya iyo wax qashinoo galaaya iyo midna uusan jirinin ayaa loo keenaa. iyaku ay furanayaana loo keenayaa. khitaamuhu khatmigiisa ama daboolkiisu miskunba waayaa layidhi. raxiiqaas yacni waxa lagu daboolay oo afka looga daboolay waxaa weeyaan waxa weye waa miski, geedka miska carafta badan weeyaan. geedka carafta badan weeyaano qofku markuu cabo yacni macaankaas iyo dhadhankaas iyo caraftaas cajaa'ibta badan ayaa kusoo haraysa, meel aada iyo aada u yaa badan waay. markaasuu ilaahay wuxuu yihi wa fii daalika midkaas hadda lasoo sheegay falyatanaafas ha u tartamaan oo ha u dhaqtamaan almutanaafisuuna, kuwa tartamaya dadaalaya, meeshaa ha u kala hormaraan wey. yani meeshaas waa meel cajiib, waa jumla muctarida, yani wase u kala dhex gashay warkii hore oo laga sifeynaya raxiiqa la sifeynaya lasoo dhexgeliyey. meeshaasaa meel cajiib badan ah, meeshaasaa meel la raadiye ah. yacni meeshaad jahanamo ka raadi laheed ood cadaab ka raadi laheed oo wixii aad jahanamo ku geli laheed aada raadsa laheed, waxaa kaaga habboon daacada ilaahay, baarinimada inaad ku dadaasho, taqwada inaad ku dadaasho, ood meesha aada noqoto dadkaas sidaa loo karaamaynayo inaad ku darsanto. taasaa kaaga qiimo badan waay. waa tala aad iyo aada u cajiib badan waay. waase ninkii qaata. wa misaajuhu buu yidhaah waxaa lagu qasaya lagu darayo raxiiqiyaa lagu sifeynaya. waxa lagu daray waxaa weeye min tasniimin buu ka ahaaday. misaajka yacni waxa lagu qasay, biyaha lagu daray wuxuu ka ahaaday min tasniimin, tasniim xaggiisu ka ahaaday waay. tasniim maxaa tahay? caynan aad ka bedela, ama huwa caynun waay. ama min tasniimin yaa uu ka ahaaday, caynan buu ka ahaaday oo yashrabu ay ka cabayaan bihaa ayada almuqarabuuna, kuwa la dhoweeyey ay ka cabayaan. yani mu'miniintii
ay ka cabayaan halkaasuu ka ahada raxiiqaas biyo cajaa'ib badanoo maaragtay yani jannada ka yimid oo kasoo ka imaanaya meel sarraysa waay, meel sarraysuu ka imaanaya. marka cayntaas ama ishaasna tasniimaa la yihahda, tasniimaa la yihahda yani sharaabka ugu qiimaha badan oo maaragtay dadka ahlu jannada muqarabiinta ay cabayaan kaa weeyaan. marka wa misaajuhu min tasniiman buu ka ahaaday caynan waayo oo yashrabu ay cabayaan, yacni yashrabu bihaa iyada ay ka cabayaan, bihaa ay minhaa ay ka cabayaan xaggeeda almuqarabuuna kuwii la dhoweeyey ay ka cabayaan. intaas markii laga sheekeeyey raxiiqii iyo dadkii baariyiinta ahaa ayaa haddana waxaa lagu gelayaa kuwii mujrimiinta ahaa ee mushrikiinta gaalada ahaa iyo dhaqankoodii iyo meeshay ku dambayn doonaana haddana mar labaad dib loogu noqonaya. ilaah wuxuu yidhi in aladiina kuwii ajramuu dambaabay waay, kuwii mujrimiinta ahaa kufaarta ahaa, kaanuu waxay ahaayeen adduunka markay joogeen min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey yadxakuuna kuwii ku qosla yacni ku jeesjeesay ahaayeen waay. yacni markii qur-aanka soo degayay la joogay maaragta maka nebiga calayhi salaatu wasalaam, gaaladii markaa joogtay sabab nusuulka halkaasu ku socdaa waay, laakiin cibradu waa caam waay. yacni nimankaasi mujrimiinta ahaa adduunka markay joogeen mu'miniinta way ku qoslaayeen, way ku jeesjeesayeen waaye. wa idaa maruu hadday soo maraan bihim iyaga hadday soo maraan yataqaamazuuna waayo qamsiisu bina ishay ku xamaan indhahay ku xamaan indhahay ku tusay. marka maruuda faacilka marna waxaa laga dhigi karaa mu'miniintii, marna waxaa laga dhigi karaa mujrimiintii, labadaba way ixtimaashaha mufasiriintu way sheegaan waay. wa idaa maruu hadday soo maraan mujrimiintu bihim mu'miniintii hadday soo maraan, amase wa idaa maruu mu'miniintii hadday soo maraan bihim mujrimiintii hadday soo maraan yataqaamazuuna mujrimiintii way qamsinayaan, macnaa indhaha ayay ku xamanayaan, indhahay wax uga sheegayaan oo ku xaqirayaan oo maaragtay sidaas oo kale maaragtay wax uga sheegayaan. wa ida inqalabuu hadday noqdaanaa la yidhi mujrimiintii ilaa ahlihim ehelkooda hadday noqdaan guryahooda hadday aadaan inqalabuu way noqonayaan fakihina iyakoo raaxaysanaya, yacni sheegitaanka ceebaynta muslimiinta mu'miniinta ayay ku raaxaysanaya ku macaansanaya ayay u noqonayaan. yani jeesjeeska iyo istikfaafka ay fududaysanayaan iyo oo u arkaan dad liita inay yihiin ayay guryahoodii u noqonayaan. xaaladaas ayagoo ku jira. wa idaa ra-awhum hadday arkaanna mu'miniintii waa mujrimiinta laga hadlaya, ra-ow faacilka waa mujrimiintii. wa idaa ra-ow hadday arkaan mujrimiintu hum mu'miniintii hadday arkaan qaaluu waxay leeyihiin ina haa-ulaa'i kuwaani la daalluuna kuwa lunsan weeye, waa lunsan yihiin. iyakiya waxay soo arkaa inay toosan yihiin, gaalada iyo soo aragtay inay toosan yihiin. markaas mu'miniintu waxay leeyihiin dad khariban waaye, dad khaldan waaye, dad saas waa gaalo, dhaqan gaalaa sidaas ah. mar kastoo la joogo sidaas in la taagan yihiin. mu'miniintu waa khaldan yihiin, waa dad dibudhac ku jira, waa dad sidaas ah, waa dad xaggaa ah. maalin kasta gaal waa uun kii waaye, kii joogay maanta ugu horreysay iyo kan maanta jooga waa isku midoo atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun, yacni wax isku wado iyo wada marayaan waay. dadka mu'miniinta saa ugu dhegan yihiin, way xaqirayaan, way liidayaan, way dabandaabiyeynayaan, way dilayaan. wax kasta oo dhibaataha mu'minka ah waxa way biyo u kabamaayaan. shaqadoodaa sidaasa mu'miniinta saas u dhaqmayaan. ilaahi wuxuu yidhi wa idaa ra-ow hadday arkaan hum mu'miniintii hadday arkaan qaaluu waxay leeyihiin ina haa-ulaa'i kuwaani la daalluuna waay kuwa lunsan weeye. wamaa ursiluu walxaal baysaa leeyihiin maa ursiluu ayaka aan loo dirin calayhim mu'miniinta xaafidiina xaalayin kuwii xifdinaaya. macnaa ayaka looma dirinba, shaqaba loogama dhigin. marka ayaku inay kala xukumiyaan inay daalin yihiin inaysan ahayn shaqo loo diraba maaha. ayakaas qora muxuu ahay howle madaxa gashadeen waay. ilaahay wuxuu yidhi falyowma maantay oo la jooga aakhira la jooga, qiyaamihiia la jooga. falyowma maanta aladiina kuwii aamanuu rumey mu'miniintii waaye min alkufaari gaaladii yadxakuuna waaye kuwii ku qoslaya. yacni adduunka markii joogso ayagu kuma qosli jirin, kuma jeesjeesi jirin. maantana kalkoodii waaye. falyowma maanta aladiina kuwii aamanuu rumey mu'miniintii waaye
min alkufaari gaaladii yadxakuuna waa kuwii ku qoslaya cala alaraa'iki sariiro korkooda ay ahaadeen hum mu'miniintii waaye cala alaraa'iki bay ahaadeen sariiro korkood yanduruuna kuwii eegayo waaye halkaasay kasoo eegayaan rabbigooday eegayaanna waa dhihi kartaa ama yanduruuna kufaartii oo naartii ku jirta oo la cadaabayo oo la halaagayo ayay halkaa ka eeganayaan halkaasay ka eeganayaan waaye markaasa ilaahi wuxuu yidhi hal thuwiba ma la amaalmariyey alkufaaru kufaartii ma la amaalmariyey maakii ma lagu amaalmariyey kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna kuwii fala wixii ay suubi jiray amaalkoodii ma la siiye waaye ma lagu amaalmariye waaye thawaabkiisii ma heleen adduunka wixay mu'miniinta ku suubi jireen sukhriyadii jeesjeeskii istikfaafkii wixii oo dhan maanta gacantay ku hayaan waaye cadaabkeedii ciqaabkeedii gacantay waa la amaalmariyey halkaasay heleen ilaahay allahna badbaadiyo ilaahay kuwii maaragtay tawjiihaadka ilaahay qur-aankiisa kuwii qaata allah inaga dhigo kuwii ku dhaqma adduunka intay joogaan camalkooda isku saxa allah inaga dhigo kuwii ku cibaadaysta qur-aanka ilaahay ku cibaadaystana allah inaga dhigo kuwana camal fala ilaahay khaatamo wanaagsan iyo maaragtay camal wanaagsan allah ina siiyo sal allah